بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti daliya dibadda meel ay joogaan. maanta waxa halka ay soo fariisiyay in videoga saga duubay waxa weeyaan shucuur haysa iyo murugo. maanta jirkayga dareen muruga ayaa maanta gal. waxaan la murugoonayaa dhibaatada Fuad Yusuf Cali lagu hayo. maanta dhibaatada Fuad Yusuf Cali lagu hayo hadii maanta reer Djibouti iska celin waayaan ay xuriyadooda doona waayaan birina ku kala haysan. birin ku kala ay dhibaatada haysan. shalay baa gadiica la dilay. maanta Fuad baa loo xiray. birina ay haysan. markaan maanta waxa leeyahay deemilitariskan videos ka soo duubay waxaan ka yiri kadalka haysta maanta waxaan ka yiri deemilitariski 12 jir baan ahaa mudane madaxweyne baan ka yiri adeer baan ka yiri oo aab baan ka yiri ciyaalkii anakii kuwa naga dambeeyay taariikhdan kugu dhiganay naga dhaadhaco xilka dhulka nabad nooga dhigan naga dhaadhaco baan ka yiri marka hadal wax walba loo fiican ugu hadlay mudida madaxweyne كمانت فيديو كان اسكا قباناي لباد waa 18 maanta halkan waxa la soo fariistan waa murugo maanta haduu caynaasha ku jiro halku Fuad ku jiro san uga murugooda Fuad yan caynaashan uga murugo loo hadli lahaa laakiin nasiib daro ina kaaga tacliintu Fuad leeyahay caynaasha male soo tacliin ku filan lahayn ayaad warshad u furto wadankii caanaha ugu xirto warshadu ku warata caanaha wadanka lagu sameeyay iyo duuda تلفزيون في جيبوتي أيوم بعدوده وضع كم يرادا وكله فؤاد يوسف علي وأبا حاصل وأبا دبا عروض هو يادش أبا دلي dadkii shalay toole ku footeenay oo xilka ku saaray ayaa Fuad Yusuf Cali dhalay dad kale ma dhalin Etrangena maaha qaraabadiisii ehelkiisa oo dhan reer Djibouti Fuad Yusuf Cali marka maanta ina bayloodkeeni ciidankeeni gaashinto lagu dilo direyskiina laga dhigo maanta reer Djibouti dhibaatada ugu wacan ayaa maanta dhibaatada ugu wacan marka maanta waxa leeyahay Fuad Yusuf Cali waa maanta waa kii Ismaaciil Umar Geelo ku soconay maanta Fuad Yusuf Cali anu haduu dhufdinto Fuad Yusuf Cali waxa ubadkayga uga sheekeyn doona nin waxa jiray baan Fuad Yusuf Cali loo oranay oo armey lahaa oo armey daleeraha oo bayloodaha oo sida loo galay oo markuu dhimanayeen isagoo ooyaya maalayana waa ilaah ku heesay maxaa la yiraahdaa beeni maratayo ku heesay muruga jidkiisa kama muuqan marka simaan dadka reer Djibouti murugoonay nin sidiina nafsadu marbay gooda nafsadu laba goor ma goodo baa dhalatay markuu ilaahay qoray inaad dhimatin oo nafsadu ka gooysa marka naftu ka ma gooyso marka waxa leeyahay maanta reer Djibouti hooyo ahaato aabba ahaato dhalinyaro hadaan hoodan waxaan hay Fuad Yusuf Cali hooyo dhan haday tahayna waa Samira islaanta Fuad Yusuf Cali iyo dadbadeeda u wada aabbo dhan waa Fuad Yusuf Cali marka imihiini waalido dhan ma sheegay hooyo aabbo imihiina maanta kii inaan dhalay oo inankiis xalka lagu xir mufadil lahaa ma fadhiyeen marka reer Fuad waa in reer Djibouti naga mid waliba tacliintiisi karaamadiisi dareyskiisi lagaga ciyaaray marka bay nid dad aan qiimo iyo sharaf lahayn goona la siiya anu maanta 18 baan inta Djibouti ku noolay 40 maanta tarabooga Djibouti na gaar 40 gaar waa bilaadkii tikada male caafimaad male dugsi male idaacad quraata wadanka adduunka laga yaqaan idaacad quraata jirta irtidada Djibouti waa jirta adduunka yaa arkay idaacad quraata wadan dad qofku waxaan u naca reer Djibouti oo maanta wax naca maanta tusaale wax niigu siiyo od nacdiin ayaa maanta haysatay maanta kiina fadhiyana ka sare joogana sare taagnaado liibeere Fuad Yusuf Cali ina ku adkaysano weeyaan liibeere Fuad Yusuf Cali maanta ninka inta iraada ayaa birtoona gobonimada gaaray maanta ka dhinta ayaa ka biri xoreyn doona aabaha maanta dhinta ayaa inniisa xoreyn doona hooyada maanta dhimata ayaa markaan waxa leeyahay maanta askarta maanta la keenay shicib reer Djibouti oo meeka dumarkay ku tumanayaan inamadooda yaryaraab ku tumanayaan halkii cadaalad askarta reer Djibouti waxaan u sheegay khaas ahaan booliiskan u sheegay waxaan leeyahay maanta Fuad Yusuf Cali haysata uma birina ninkani haysan ninkii maanta dhibaatada nici waaya ee qurunka nici waaya birina isagoon bay haysan marka
markaan waxaan ii sheegayaa ninkii wax naca unbaa meel gaara ninkii wax naca unbaa meel gaara ka yar ilaahay ka weyn waa Fuaad Yuusuf Cali ka yar ilaahay ka weyn waa Fuaad Yuusuf Cali aanu 18 baan yahay intii la da'ana maanta waxaan Teeraanka loo soo baxo Teeraanka loo soo baxo imikada saan u joogo banaabax baan ka yimid banaabax waxaan ka murugooday booliisku dadka u galayeen markaa warasaasan nagu aay markaa wadanka adduunyada inta laga yaar marka shicibku soo baxan waxa la arki jiray wadanada carabta wad aragtay ka dalka haystaan sheegaya Ismaaciil Cumar Geelle wadanada carabta wad aragtay marka shicibku soo baxan ciidankuna direeska u dhiga marka reer Jabuuti maxaa tihiin booliiskan sheegay ana ciidamada kale ayaga ma geeyaan ay wallahi wa mag ilaahay ma ayaniga ma geeyaan booliiska Cabdilaahi Cabdi xukumo ayaan sheegayaan waxaan leeyahay ninkii maanta duulka nici waaya birina waa isaga ninkii maanta duulka nici waaya birina waa isaga nous sommes toujours Fuaad Yuusuf Cali 43 ans hadii ano koton jirna hadii la weydiiyo maxaad ka fahantaa hadii la yeeray 2000 baan dhashay 2020 waan joogaa waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle baano yarna qabtay anoo weynahayay sidaan oo galayay dad badan oo waxa jira dib loo haysto qalada fadhi dadaan waxba garanayay oo akhristoon bartay oo waxba waxa beesha la dhigay tacliin u lahayn oo meel kastana fadhiyaan waa la arkay dad doctora soo bartay oo reer Jabuuti ee tronjeega shalay soo wada geliyay ayaa maanta heer sare jooga dadkii reer Jabuuti marka maxaad noogu taalaa shalay toodadii waxaan ku sheegaan mudan madaxweyne kulanka ilo maalinta faasajwaaga ciidanku difiileega maraan lagu soo laandii kulliye ma daragtay ma faanta maanta dana ku sheegay dagahay furiya ana ku sheegay wuxuu la kulliyahay dadkii noob hal jamaayadii aanka noo dhaliyay ee dhintay gumaysiga daraadina ay dhintay naftoodu huray ayaa cishada faasajwaaga qabriga ka dhex ooya dumar ahaato rag ahaato odayaal ahaato inama yar ahaato iyo qabriga ka dhex oogaya oo iraada moodo inuu ubadkiiga dambaysa ku noolaanayaan gooniba ma dhaliyeen waskana noolaalaad gumaysiga ma faantay markaan waxaan ku sheegay mudan Ismaaciil Cumar Geelle libere Fuaad bahanka ku adkaysanay libere Fuaad wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh